السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوري يا صاحبي waxaa maanta qofka markuu darooga bilaabo inuu isticmaalo bilawgeeda ilaa noloshiisa meesha ugu dambeysay qofka daroogada ay geeyso okay adiko mahadsan in qalb shir diray like saar ama soo saaray rahmatullahi barakatuh okay qofka markuu horeyso soo baxaya daroogada uu arkaa jidka ama ayo taalo ama meel ayo taalo ama qof soo cabay ma cabay oo sababta ma yaqaan ag maraya maanta la isku day daroogada wuu fiirina si isku day inuu isticmaalo ayuu rabaa daroogada bas si loo isticmaalo baranaya dan siyaas ayuu daroogada xuquuq naqanaya qof dhabtid ah ama la qabsaday asiga ma oga markii inuu daran tahay jawiga iyo meherka iyo meesha uu ku jiro ayaa waxay naqanaysaa wax kale meel kale ay geeysa saadiraadin markii qofkii maalinta kale waa u bariyo sidoo kale inta wuxuu isku day inuu daroogada raadiyo sababta jirkiisa kuma saaqin oo waa ku yarta maalinta kale arkaa hadana wax dhaama cabto iska dhaafta inuu xabsaha shada baa cabtay saas buu noosh ku bartaa sida dhalinyarta inta badan ee dhahan daroogada ee dhimi hadana maalinta kale saas bay ugu dhamaatay sidoo kale qofku uu noosh siibada yani maalin walba laakiin waa cabaya subax galab habeen aad xiligoodana waa cabaya noloshiisa marka ma hela xoogaariya oo aad u shaqeeyo aad u ordo ay soo helo sigaarkas ama qaadka ama waxyar daroogada ani daraagis hada wadanka ku soo batay qofka soo ku helo dan jirkiisa qofku isbedelay marka aa soo gaaray marka qof hada qurux badan oo muralkiisa la arki karo la fiiri karo doo ah ee qofki wuxuu noqonayaa qof maanta baaba'ay noloshiisina eber in qatay dan hadana qofki woo si kufaya woo si dhacaya ilaa noloshiisa marka dam san daroogadaasi oo isticmaalay gudglisa kadib kaluutin oo kan saari waaya wixii qaldan iyo waxsan qofka bini'aadamka ma jooji karo soo sida cuntada iyo shaaha iyo bariiska waxyaabaas aan cuntada si u jooji karin dan ay tan aan u jooji karin sababtoo waxa la qabsatay ila marka ugu dambeyn sariir ku sixisa ku jifsa dan hadii sariir ku sixisa xatay oo soo fiicnaatid oo bogsootid oo xitaa caafimaadka aad u liido ma jooji kartid sababtoo waxa isku sidaysa in ay isticmaasho ilaa aad markaas dambo aysan gud ku geysaa maan aad ka dhimata ma jooji kartid laakiin nolosha bini'aadamka subhanahu wa ta'ala qofka hanuuniyo waxaan tadqiin ama sigaarka ama smoking ha seerahan ingiriiska wax fiican ma ahan noloshaada ay baabiyaan mustaqbalka ay ku ciyaaraan kan ilmahaada kan hooyooyinkaada kan walaalahaada dhammaan oo ku ciyaaraan xitaa heer waxa gaaraysa aad qofka bini'aadamka aad dambe qaweysid marka walaalaha iska ilaalino dhalinyarteena ay ku wacyi gelino intaas ayaa rawaas calaykum warahmatullahi wabarakatuh